wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan la qaadatay mas'uuliyiinta jaamacadaha dalka ka jira iyo daladaha waxbarashada dalka. kulankaasi ayaa si gaar ah diiradda waxa loogu saarayay hanaanka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ee dalka. qaar ka mid ah aqoon-yahanadii kulanka ka hadlay ayaa waxa ay soo jeediyeen talooyin ku aadan hanaanka ugu habboon ee dib u eegista loogu sameyn karo dastuurka ku meel gaarka ee dalka si uu u noqdo mid dhameystiran. oo ku saabsan dib u eegista dastuurka runtii anagana aad baan u ajiibnay maantana oo bisha ay tahay 9 bisha waxaan xaadir ku nahay miiska waa tashay talaad daladaha waxbarashada ama bahda waxbarashada waxay u taagan runtii mar walba inay ka qayb qaataan waxyaabaha runtii dalka horumarkiisa ku saabsan. maxaa jira daladaha waxbarashada Soomaaliyeed waad ogtihiin taariikhda ay leeyihiin. dalkan markuu burburay runtii aan ognahay 1991 kadib daladaha waxbarashada waxay ahaayeen kuwii dhexdooda xirtay ama aqoonyahanada daladaha waa kuwii dhexdooda xirtay waxbarashada barnaamij cadaawis istaagtay. dabcan dastuurku sida aan ognahay adduunka dastuurku waa heshiis u dhaxeeyo yacni dadweynaha iyo dawladdu ay heshiis ku yihiin isla markaana dawladdu ay mas'uul uga tahay dardargelintiisa iyo u dhaqankiisa intaba. intaa kaskow dastuurka markii laga hadlayo qiimihiisa waan garanaynaa inteena wax baratay. dawlad adduunku ma jiri karo yacni adduun ma jiri karo dawlad la'aan, dawladina ma jiri karto dastuur la'aan. waa wax isku xiran. waa muhiim in dastuur heshiis lagu yahay oo dadku ay yaqaanaan yacni la helo. marka waxaan jeclaanahay dastuurka markii laga hadlayo Soomaaliya waxyaabo badan baa hoos imaanayo. waxaa kow ka ah dalkeena markaan ka hadlo يعني dastuurka waxa saameyn ku leh amniga ayaa saameyn ku leh aragtidayda. wasiir ku-xigeenka arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya Dr. Xuseen Cabdi Cilmi oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan gobolada dalka Soomaaliya bulshada ku sugan ay ka qayb galin doonaan hanaanka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ee dalka hadafkoodana kaasi uu yahay si ay yiri loo dhameystiro dastuurka. la baro dastuurka loo qabto kulamo la gaarsiiyo gobolada meelo badan. wax badan baa loo soo qabsoomay gobolada Soomaaliya oo waa soo marnay maamul goboleedyadii Muqdisho wax ka badan 12 kulan ayaan wasaaradda ay samaysay bulshada qaybaheeda kala duwan ay la samaysay. hadda marka wixii waxaan galaynaa shaqadii rasmiga ahayd oo bulshadii xogteedii iyo wixii loo bedeli lahaa sharciga in aan galnay noqonaysaa. waxaa jirto baarlamaankii hore inay keeneen talooyin bixin ee guddigii madaxa bannaanaa iyo